kulanti wanaagsan dhegeystayaal guud ahaanba asxaabta ku xiran channelka Kids Media. waxaan doonaynaa maanta inaan idinla falaqeynaba arrimaha dhanka caalamka qaasatan anagoo ku bilaabayno dalka Mareykanka iyo arrimaha siyaasadda ee Saudi Arabia. waxaan ogsoonahay Saudi Arabia ayaa waayidan xilidii ugu dambeysay dalka Islaamka waxa uu ku noqday caqabad meel uga soo baxday kadib markii uu qabsaday amiirka hadda xilka hayo markii uu la wareegay wixii ka dambeeyay waxaa sii xumaanaysay sidoo kale siyaasadda dalka Saudi Arabia oo kala dhaqmayo wadamada Islaamka qaasatan wadamada Khaliijka iyo wadamada kale ee ku xeeran halkaas oo Soomaaliya ka mid tahay iyo wadamada kale sidoo kale Suuriya iyo Turkishka ayaan ka marayn halkaas sidoo kale waxaa cilaaqaadka uu sii xumaday wadamada reer galbeedka iyo isla lahayn Saudi Arabia kadib markii wadanka Saudi Arabia uu ku qubay baa la yiri saliid aad u tiro badan suuqa caalamka taasina ay keentay in Mareykanka iyo Russia ay in badan kala hadleen in Saudi Arabia uu joojiyo arrinka qulqulatada ah ee dhaqaale taasi oo ay u arkayeen inuu dowladda Saudi Arabia ay arrinteedu ay tahay mid runaantii u muuqato fawdo marka loo eego ganacsiga xorta ah ee suuqa saliidda iyo shidaalka runaantii waxaa soo ifbaxayo hadda arrinta markii laga soo tago in dowladda Mareykanka sida marka uu qabtay madaxweyne Donald Trump qudhiisa ay dowladda Imaaraadka dhowr jeer ay isqabteen dhanka siyaasadda taasina oo madaxweyne Donald Trump oo dhowr jeer uga dhacay baa leeyahay dhanka warbaahinta asagoo adeegsanayo meel uga dhacay Saudi Arabia ayuu dhowr jeer ugu hanjabay Mareykanka inuu kala bixi doono ciidamadiisa difaaca hase haatee arrintan ayaa soo ifbaxday horaantii markii dowladda Iran lagu eedeeyay in gantaalo lagu garaacay baa la yiri dhuumaha shidaalka ee ku yaal halkaasi Mareykanka gantaaladiisa difaac ee Patriot loo yaqaanana ay halkaasi yaaleen hase haatee dowladda Saudi Arabia ayaa qudheeda ay ka walacday gantaalada halka ay ka yimideen walow Mareykanka qudhiisa uu sheegay inuu difaac u yahay Imaaraadka hase haatee Mareykanka ayaa lagu soo waramaya xilligan inuu gantaaladiisa difaaca oo ka raranaya baa la yiri iyo agab kale kaasi oo ay kamid yihiin baa la yiri diyaaradaha xambaara baa la yiri gantaalaha nooca culus iyo waxaa la yiri qalabka militariga halkaasi u yeelay baa la yiri sidoo kale warbaahinta ay sidoo kale sheegtay baa la yiri Mareykanka waxba kama qosayaan baa la yiri laakiin arrinta hadda soo shacbada ayaa waxay tahay in aan sargaal u hadlay baa la yiri warbaahinta oo sheegay oo magaciisa la shaacin inuu sheegay in gantaalada lagu soo riday goobaha saliidda taasi oo lagu eedeeyay buu leeyahay dowladda Iran aan iminka cadeynba loo haynin taasina ay tahay in laga soo riday dhanka iyo wuxuu sheegay sargaalkan Yemen dhankeeda laga soo riday hase haatee sargaalka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka markii loo eego geeska cilaaqaadka geeska aysan dhankaasba ku ahayn buu leeyahay lid dowladda Iran oo ahayd dowladaha ugu badan ee Sacuudiga uga baqayay Mareykanka inay dhankaas weerar ku qaadi doonto hase haatee Mareykanka ayaa xilligan waxa uu gantaaladiisa u daabulaya baa leeyahay halka iyo goobihiisa saldhigyada ugu muhiimsan dalkiisa hase haatee arrinta waxay haddana iminka isu rogaysaa ay una muuqataa baa leeyahay in Mareykanka uu iminka xilliga la joogo u saaman goranaya amba uu isu aruurinaya baa leeyahay inuu dagaal kala hortaga baa leeyahay dowladda Shiinaha kaasi oo ay waayidii dambe isku haysteen dhanka siyaasadda iyo sirdoonka Mareykanka ayaa siyaabaha kala duwan ee xilliyada dambe uga hadlayay ayaa loo arkayay in Mareykanka uu dagaal ku wajahayo asigoo waxaa la yiri dhanka kale la shaaciyay in weeraradii dhanka ahaa iyo islaamka kula jiray baa leeyahay dowladaha bariga dhexe iminka u muuqda baa leeyahay mid loo wareejinayo Shiinaha dhankiisa hase haatee Shiinaha qudhiisa waxaa lagu soo waramayaa in dhanka muslimiinta oo talaabtii oo ku hayay iyo problemka oo ku hayay idan dhanka loo rogay baa leeyahay oo si kale idan marka la falaqay doono laakiin dhanka loo rogay Mareykanka dhankiisa wuxuu muddadii ugu dambeysaba isku haystaan Shiinaha oo dhowr jeer isku murmeen
dhanka Pacifica gacamka lagu muraysan yahay marinbiyoodka halkaasi oo waxaa la yidhi ciidamada China ay soo dhoobeen baa la yidhi maraakiibta noocyadeeda kala duwan oo isku xambaarsan baa la yidhi diyaaradaha dagaalka. Sidoo kale dhan kale waxaan ka marrayn iidana dowladda Soomaaliya oo waxaa iidana la sheegay inay ku fashilantay baa la yidhi xakamaynta cudurka coronavirus kadib markii wasaaradda caafimaadka ay diiwaan gelisay baa la yidhi dad aad u tiro badan qaarkood kalena ay ku dhinteen baa lagu yidhi warbixinadan. hase haatee dowladda Soomaaliya oon awood iyo taag buuxda aan u lahaynin markii loo eego qalab iyo dhaqaatiirba ay u lahayn, haddana cudurkan uu yahay mid xawli ku socda adduunkana kaga yaabshay dowladaha runaantii awoodda leh baa la yidhi kuwaasi oo weerar ba-an kala kulmay dhanka dhanka ka hortagga iyo dagaalanka baa la yidhi. Soomaaliya ayaa waxay ku cuslaatay in ay xakameeyaan cudurkan, hase haatee waxaa gacan ballaaran ka siinaya sida lagu xakameyn lahaa cudurkan dowladaha aynu saaxiibka nahay sida hab ugu horeysa dowladda Turkishka ayaa geysay baa la yidhi wax muddo aan caymnayn oo sidaa u fogeyn gloveska nooca Nike 95 loo yaqaano iyo qalab kaleetood oo nooca neefsashada ah oo isbitaalaadka lagu deeqay. Lama ogo xaqiiqda iyo halka dowladda Soomaaliya ay ugu dambeyn ku xalin doonto arrintan, laakiin cudurka ayaa fara ba-an ku haya dowladda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kaleba. hase haatee lama ogo wararkii kale kusoo kordho waan idin la wadaagi doonaa hadduu allaha awoodda lahu ka raali noqdo. Sidoo kale dhanka kale waxaa iyadana lagu soo waramayaa in dagaalo foolka fool ah ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka socdeen baa dalka Yemen halkaasi oo ay ku dagaalamayeen ninka la dagaalamaya dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo xogaga halkaasi ku sugan dowladda. hase haatee maleeshiyaadka ayaa dhowr jeer isku dayay iyagoo dhowr jiha ka soo weeraray misna adeegsanaya baa la yidhi kaartooyin kala duwan ayagoo ka faa'iideysanayo xilliga lockdownka lagu jira. hase haatee umaysan suuragelin. wararkeena kale ee kusoo kordho halkan ayaad ku maqli doontaan Kids Media. hase haatee dhanka kale waxaa ayagana dhowaan hawada isu marinayay dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha, laakiin aan ka dhowr sugno aan waqti siino xilliga iyo siday xaaladdu noqon doonto. hase haatee xasradda iminka gobolka ayaa u muuqata mid kacsan. waan ogaa doonaa sida ay noqoto. halkan ayaan kusoo gabagabeynaya warbixintii kormeerka ahayd oon idinkaaga soo diyaariyey maanta. Kids Media weelkaa ka dhigo laagta iyo subscribe-ta naga iloobinana una sii gudbi saaxiibada.